بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كسو دوااد انجينير عبد الدريس ساينتفك شانل هاتوغو برتين 10 مادooyinka cilmiga xisaabaadku idin xiisageliya waa 10kii maadada xisaabta jabtarka shanaad fasalka afraad ee dugsiga sare waa jabtarka shanaad limits and continuity ayaa waxa noo marayo qaybtiisa gabagabada ah waxaan ku jirnaa jabtarka qaybtiisa ugu dambeysay 5.5 waxa ku baran doona wax la yiraahdo continuity qaybta ugu dambeysay jabtarka waxa ku baran doona wax la yiraahdo continuity ayaa ku baran doona continuity qaybtan waxaan ugu hadli doonaa oo kaliya functionka inuu yahay continuous ama inuusan ahayn ayaa qaybtan ku baran doona marka continuity marka baranayna laba qodob waaye qodobka koowaad waxa baran doona continuity at a point waxa fiirin doona functionka haysano inuu continuous ku yahay barna la siiyay sidoo kale waxa baran doona qaybta ku xigta ugu dambaysa continuity on an interval continuity-ga intervalka ama functionka haysano waxa fiirinayna inuu continuous ku yahay interval la siiyay qaybta koowaad waxa kormaraya wax la yiraahdo continuity at a point ama continuous at a point qaybta koowaad 5.1 waxa ku baran doona continuity of a function qaybta koowaad waxa ku baran doona continuity of a function at a point continuity of a function at a point qaybta ugu horeysa waxa ku baran doona continuity-ga functionka marka lagu siiyo bar ama waxa fiirinayna functionka inuu continuous ku yahay of given point ama bar lagu siiyay waxa jira marka definition marka aan fiirnayno ama test gareynayno in function la siiyo continuous uu ku yahay bar waxa jirto conditions ama definition jira shuruudo la isticmaalayo marka saddex condition jirto horta marka ugu horeysa waxa lagu siinaa waxa waa function of x mesela waxa lagu siinaa f of x waxa lagu dhahaa continuous miyuu ku yahay at x equal a kana kala lagu siinaa at this point function can continuous miyuu ku yahay mise ma ku ahan cadeeya lagu dhahaa marka arab ina cadeeyo marka this point x equal a in function can continuous uu ku yahay in kala marka arab ina cadeeyo waxa jira conditions ama shuruudo la marayo conditions ka ama shuruudaha la marayo maxaa waa ko shuruuda koowaad waxa shardi ah in f of a is divided in f of a la qeexo f of a is divided qodobka koowaad waa qodobka koowaad waa in f of a la qeexa qodobka koowaad waa qodobka labaad ustaad maxaa waa lim x approaches a f of x waa inuu noqdaa exist limitku functionkaas waa inuu noqdaa exist waa inuu noqdaa qodobka saddexaad maxaa waa limit value oo ah lim x approaches a f of x iyo sidoo kale function value oo ah f of a waa inay isku mid noqdaan yani saddexdan condition hadii la helo markaas waxa dhigi karnaa functionka haysano the continuous ku yahay at this point markaas la dhigi karaa koow qodobka koowaad hadii aan ku celiyo waxa leenahay horta marka ugu horeyso waxa shardi ah in f of a ama function of x kaas in la qeexo koow tan labaad limitkaaga inuu exist yahay tan saddexaad limit value iyo function value inay isku mid noqdaan hadii saddexdan condition la helo waxa leenahay ustaad marka function of x kaaga wuxuu continuous ku yahay bartan la siiyo continuous ku yahay marka saddexdan barood saddexdan condition waxa lagu xaqiijiyaa lagu test gareeyaa in functionka haysatid uu continuous ku yahay bar lagu siiyo qaybtaas waxaan ugu baxnay sida loo xaqiijiyo continuity-ga functionka marka lagu siiyo point marka intaan shuruudood hadda aan sheegnay conditions kaas hadii laga waayo oo function of a oo divided uusan noqonin limitkaagu uusan exist ahayn limit value iyo functional value uusan isku mid ahayn intaan shuruudood laga waayo wuxuu noqonayaa discontinuous ayuu noqonayaa oo waxa leenahay functionkaaga continuous kuma ahan ayaa leenahay marka intaan condition ama intaan shuruudood la waayo macnaha marka waxa qaadan doona marka example la xiriira continuity ayaa qaadan doona marka example-ka koowaad oo 5.1 oo buug ku qoran example-kaas xoogaa yar waxa ku jiro error su'aasha qaabku kugu weydiina wala fahmi karaa laakiin garaafka sawirka meesha ku qoran ayaa xoogaa yar error ku jiro marka inta saxdiisa laga heli doono insha Allah iyadana dib u dhigi doona waxa toos u qaadan doona marka example-ka xiga oo ah 5.12 example-kan wuxuu leeyahay example 5.12 example-ka 5.12 wuxuu leeyahay function lagu siiyay oo function of x is divided wuxuu leeyahay functionka waa la qeexay sidana loo qeexay oo waxa leeyahay function of x waxa waaye wuxuu la mid yahay x square minus 1 marka x uu ka yar yahay 0 sidoo kale function of x wuxuu la mid yahay x minus 1 marka x uu ka weyn yahay ama la eg yahay 0 ka yar yahay 3 sidoo kale function of x wuxuu la mid yahay 12 minus x square hadii x kaaga uu ka weyn yahay ama la eg yahay 3 marka function kana lagu sii waa la qeex functionkii waxa lagu dhamaa marka waxa go'aamisa in function kaani uu continuous ku yahay at x equal 0 iyo x equal 3 labadan barood
function kan continuous miyuu ku yahay mise kuma ku ahaan horta farta function kan u jeedin waxa lagu magacaabaa piecewise function Allah piecewise function waxa lahaa function ka markuu ka kooban yahay laba qayb ama wax ka badan waxa lagu magacaabaa piecewise function Allah marka piecewise function kan waa lagu qeexay waa u jeedaa oo waxa lagu dhahay function kan mar halkan uu intaan uu lamid yahay marka x uu ka yahay 0 marna intaan uu lamid yahay x - 1 marka x uu ka weyn yahay ama la eg yahay 0 ka yahay 3 marna intaan uu la eg yahay marka x uu ka weyn yahay ama la eg yahay 3 marka maxaa laga rabaa ina xaqiijisid in function kan continuous uu ku yahay at this point x equals 0 iyo sidoo kale x equals 3 marka see oo xaqiijinayna function kan inuu continuous ku yahay barahaas la sheegay ko waxa kormana waxa xaqiijinayna in function kan la siiyay uu continuous ku yahay x equals 0 inuu continuous ku yahay in kala ayaa xaqiijinayna marka maxaa sameeynaa sidee x equals 0 ku xaqiijinayna inuu continuous ku yahay saddexda condition aan soo qaadanay ayaan fiirinayna saddexda condition waxay ahayd in function ka marka hore la qeexo ko tan labaad limit ka function inuu exist yahay tan saddexaad limit value iyo function value ina isku mid noqdaan saddexdaas condition ayaa ku tijaabinayna hadii saddexda condition ay waafaqdo markaas waxa leenahay function kaasi wuxuu continuous ku yahay bartan loo siiyo oo ah x equals 0 marka kan koowaad aan ku hormar marka shuruudda koowaad waxay ahayd function ka in la qeexo function kaaga inuu divided yahay function waa la qeexay divided waa marka shuruudda koowaad way waafaqdo function kaaga waa la qeexay waa divided shuruudda labaad oo gudbina oo ah marka limit ka function inuu exist yahay limit ka function marka exist nimadiisa la xaqiijinayo waxa la isticmaalayaa wax la yiraahdo one sided limit waxa soo baranay ashar lagu magacaabo one sided limit waxa loo isticmaalayaa in lagu go'aamiyo limit ka exist nimadiisa limit ka exist biya bisoo ma ahan one sided limit marka laba qayb oo ka koobnaa left hand limit iyo right hand limit waxa dhihi jirnay marka limit ku wuxuu exist noqonayaa marka leftiga iyo right ka ay isku mid noqdaan ayuu exist noqonaa marka waxa sameeynaa si aan u xaqiijino limit ka function kan exist nimadiisa one sided limit aan raadinayna oo waxa waaye one sided limit ka marka raadinayna marka waxa reference noo ah oo ku raadinayna 0 da saqadanayna waxa leenahay inta fiir marka this sphere these conditions sphere ustaad conditions kas marka fiirino x kan waxa waa x less than 0 x less than 0 ustaad kan hore x less than 0 waxa loo qori karaa x approaches to 0 from left saasa loo qori karaa hore u soo baranay marka baranayni one sided limit ka ayaa soo baranay x less than 0 less than waxa loo qori karaa waa left greater than waxa dhan waa right marka x less than 0 waxa u qori karnaa x approaches to negative 0 x approaches to 0 or left hand limit ah marka intaas waa isla fahanay waxa dhahnay markii aan rabno inaan go'aamin existnimada function kaani waxa isticmaalina one sided limit ka isticmaalina one sided limit ka muxuu ahaa waxa la raadinaa left hand limit iyo right hand limit marka left raadinayo less than meel ku jirta raadinaa conditions kana fiirna waxa raadinaa less than meel ku jirta less than inta ku jirta x less than 0 soo qaadana x less than 0 waxa loo qori karaa x approaches to 0 or from left ah kana qaadana marka kaas qaadana marka kan function kana soo qaadana waxa raadinaa marka waxa raadinaa waxa la yahay the limit of x approaches to 0 from left function kaas oo x ka less than 0 ku yahay waxa waa x square minus 1 waxa sameeyna direct substitution toos ugu bedelna 0 oo square minus 1 okay 0 square was 0 minus 1 minus 1 is 0 dila kala jar waxa waa minus 1 marka sidaa daraadeed limit ka qaybtiisa leftiga ama left hand limit of 0 waxa waa ustaad waa minus 1 waa sidoo kale 0 waxa raadinayna marka right ka raadinayna hadana the limit of 0 the limit of function of x as x approaches to 0 from right ustaad waxa raadinayna marka right arabno 0 waa inay waxa lahaa waa inay ka weynata x marka right arabno marka waxa raadinayna greater than x inta ka helana halkaana laga helaa oo meeshan waxa noo yaalo x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay 0 x waxay ka weyn tahay 0 maadaama inta ka dhaxelaa this function qaadana oo waxa leeyahay ustaad lim x approaches waxa leeyahay lim x approaches to 0 from right function kana soo qaadana maadaama x greater than 0 halkan laga helaa x minus 1 waxa la yahay marka booska x ka soo toos 0 ugu bedelo x booska x ka 0 ugu bedelo 0 minus 1 0 minus 1 maxay noqonaysaa marka waa minus 1 hadda marka fiirino left hand limit iyo right hand limit maxaa noo soo baxay one value hal qiimo noo soo baxay oo it means meesha waxa cadeynay in left hand limit oo lim x approaches 0 from left f of x uu limit yahay lim x approaches 0 right hand limit f of x inuu leeyahay marka tan labadooda maxay leeyihiin -1 tan marka waxay noo cadeynaysaa in limit ka functionka lim x approaches to 0 f of x inuu yahay
exist inuu yahay cadeynaysa hadda marka waxa cadeynay marka conditionka labaad oo ah limitka exist miya mise ma ahan marka cadeynaa marka conditionkaas ay ku cadeynay marka hadii aan ku laabto ustaad koo waxa sameeynaa marka aan cadeynaa limitka inuu exist yahay waxa la raadinayaa one sided limit left hand limit iyo right hand limit marka aan raadinayo left hand limit maxaa sameeynaa ustaad horta waxa reference ku ah waa 0 daas waa point da ma this point maxay leedahay waa 0 daas mar waxa raadinay marka left arabo less than 0 raadinaa right marka arabana greater than 0 marka inta fiirina marka function kale qaxa fiirina less than 0 waa kana x less than 0 kana ah x less than 0 maadaama kan uu yahay x less than 0 waxa loo qori karaa x approaches 0 from left ya loo qori karaa this function marka qaadanayna waxa leena marka lim x approaches 0 from left x square minus 1 toos direct substitution sameeyna toos ugu bedelna 0 square minus 1 0 minus 1 marka maxay la mid tahay minus 1 right marka arabo marka greater than 0 inta laga helo ustaad x greater than 0 halkaana laga helaa oo this is maxaa waa x greater than 0 maadaama x greater than 0 uu yahay it means x greater than 0 waxa loo qori karaa x approaches 0 from right marka this function aan qaadanayna oo waxa leenahay lim x approaches 0 from right x minus 1 toosa waxa ugu bedelnaa marka booska x ka 0 0 minus 1 maxay la mid tahay minus 1 hadda marka waxa noo soo baxay 0 da markii laga qiimeeyo leftiga functionka iyo right markii laga qiimeeyo x equal 0 markii 0 la joogo waxa waa same value oo minus 1 ay soo baxaan hadda marka waxa cadeynay lim x approaches 0 f of x from left iyo lim x approaches 0 f of x from right inay isku mid yihiin cadeynay maadaama labadan isku mid ay yihiin waxa leenahay marka the limit of f of x as x approaches 0 exist waa marka qodobka labaad ama conditionka labaad oo waxa cadeynay in limitku uu yahay exist iyo inuusan ahayn hadda waxa ogaanay limitku inuu exist yahay ila soo macna shuruudda koowaad maxaa كو وحشرد أحسن لم في function كان أقولها continuous ومسمعها سي function كان continuous ونقض وحشرد إن function كاجا divided وياهي هرت function كdivided وياه طلبات إن limit exist وياه وحقيقي limit كله exist وياه شروط السدحات وحقيقينا مرك وحقيقينا إن limit value إن function value إن إسكو مديهنا حقيقينا أوكي limit value مرك سأو حقيقينا مرك إلى أستاذ limit value وانا قانا هذا وحاهن لي one sided limit يعني left hand limit right hand limit الله بدو محول limit يعني minus 1 هذه left right minus 1 limit هي the limit of the function محول limit نقولنا minus 1 أو هذا مرك وحالينا هاي أستاذ وحالينا مرك سلا درادات lim x approaches to 0 f of x waxay la mid tahay minus 1 inay minus 1 la mid tahay waxa ku cadeynay liftiga iyo right-ka ayaa waxay la mid yihiin minus 1 oo limitka x approaches 0 markii lifti laga qiimeeyo iyo markii right-ka laga qiimeeyo labadaba minus 1 waa maadaama labadaba minus 1 ay la mid yihiin waxa leenahay markii lim x approaches 0 f of x maxay la mid tahay minus 1 marka limit value saasa ku helnay functional value ama function value si ku helana function value waxa ku helana at x equal 0 qaadanayna x equal 0 ayaa soo qaadanayna x equal 0 intee ka helana marka inta fiiri this inta ka fiiri ustaad x equal 0 inta laga helaa inta x equal ma aha halkaana laga helaa x equal 0 oo meeshana waxaa noo qoran x greater than or equal soo ma noo qoran x equal 0 halkaana laga helaa maadaama x equal 0 halkaan laga helo function kana soo qaadana oo ah x minus 1 waxaa leeyahay marka ustaad waxaa leeyahay ustaad function of x waxay la mid tahay x minus 1 kana soo qaadana marka booska x ka wuxuu ku bedelanaa 0 ku bedel marka waxa raadinaa f of 0 waxay la mid tahay 0 minus 1 marka meeqa waa minus 1 hadda meesha waxa ka cad waxa meesha ka cad in limit value lim x approaches 0 f of x uu la mid yahay function value oo ah f of 0 labadana minus 1 ay la mid yihiin marka limit value iyo function value waa isku mid saddexda condition marka condition ka koowaad wuxuu ahaa in function ka defined uu yahay ko condition ka labaad wuxuu ahaa in limit ka exist uu yahay limit ka function ka marka function ka limit kiisa maxaa waaye exist waaye waa xaqiijinay inuu exist yahay one sided limit ka isticmaalay tan saddexaad maxaa waaye limit value iyo function value inay isku mid noqdaan isku mid waaye sidaa daraaddeed marka hadda maxaa go'aamin karnaa hadda waxaa go'aaminaynaa marka in f of x is continuous waxaa go'aaminaynaa in f of x uu ku yahay continuous uu ku yahay at x equal 0 waxa ku aaminay in f of x continuous uu ku yahay at x equal 0 bacdama ay waafaqday saddexdii condition ee soo baranay marka waxa leenahay f of x wuxuu continuous ku yahay bartaan lagu magacaabo x equal 0 marka waxaan gudbinaa su'aasha qaybteeda labaad wuxuu leeyahay xaqiiji in function kan continuous uu ku yahay at x equal 3 waa sida hadda oo kale leeyahay
كي هذا دافعني كان وفهمنا سيدا كو حقيقيننا فانكشن كان انه continuous كو يحي at x equal 3 marka saddexda condition loo baahan yahay ko condition ka koowaad function kiinu defined yahay tan labaad limit ka function kiinu exist yahay tan saddexaad limit value iyo function value inay isku mid yihiin saddexda shuruudood la helo markaas waxa leenahay marka function kan wuxuu continuous ku yahay at x equal 3 marka aan xaqiijino qodobka koowaad marka function ka inuu defined yahay uu caddaas waana la sheegay function kayga waa la qeexay function is defined waa la qeexay ko qodobka koowaad waa haysanaa qodobka labaad waxa xaqiijinayna limit ka inuu exist yahay marka xaqiijinaya limit ka exist nimadiisa waxa isticmaalaya one sided limit ka isticmaala one sided limit waxa waa leftiga iyo right ka raadina marka maxaa sameeyna hadda waxa laga rabaa x equal 3 waa markii aan rabo one sided limit ina raadiyo ustaad limit marka raadinayo in equality ka la isticmaalayo less than iyo greater than ka isticmaalina marka waxa fiirnayna x less than 3 inta laga helaa markii aan rabo leftiga waa markii aan rabo right hand limit marka aan rabana x greater than 3 inta laga helaa hada ko waxa kormana leftiga oo waxa raadina left hand limit ka ayaa raadina marka x less than 3 inta laga helaa halkaana laga helaa oo inta waxa lagu leeyahay x wuxuu ka weyn yahay 0 ama la eg yahay x wuxuu ka yar yahay 3 Soma x wuxuu ka yar yahay 3 inta ka heleena marka x less than 3 waxa loo qori karaa x approaches to 3 or left ah marka this function kana soo qaadanayna marka function ka qaadanayna ka waa function ka maadaama x less than 3 halkaan laga heli karo function ka qaadanayna function ka soo noqonaa marka waxa leenahay lim x approaches to 3 from left function ka soo qaado x minus 1 توصل أقول بدلنا مركز أستاذ علينا هاي 3 minus 1 محل متى مركز 3 هالكتر والله شو كله هذا حساس عنه left هاي اللي ميدا حساس عنه right كمركب حوا x greater than 3 أنت لقيها x greater than 3 هالكان لقيها x greater than 3 this function قاعدنا مركز right كربنا وحاردين مركز lim x approaches 3 from right 2 ألف x 2 ألف minus x square 2 ألف minus x square توصل أقول بدلنا مركو حاليا هاي لبي 1 minus x كبوس كيسو 3 كو بدل square صارن لبي 1 minus 6 square كده سجال كلا جرى ما قوى مركو لي 1 سجال كجر لبي 1 هذه سجال لك جرى و6 هو هذا مركب حقيقي إن left hand limit ك right hand limit ك يصاب عن different value إلى سنة سكوب ده left جوا الله right جوا الله هذا مركب حقوقاني lim x approaches 3 from left f of x إنه سلمت أهين لم x approaches 3 right f of x إنه سلمت أهين أوجاني هذه مركب left hand limit right hand limit إيش نسكمت أهين وحلينا therefore the limit of the function as x approaches 0 f of x وحلها does not exist limit كان معها متجر معها هذا مركب حقيقي أوجاني in limit كفكشن كأوصل أهين exist إنه وصل أهين سدح الشروط مركب محيهات شروط الكواد محيهات in horta marka ugu horeyso function kaaga defined uu yahay function ka uu yahay defined tan labaad limit ka inuu exist yahay shuruud labaad ay ku dhacday oo existnimada mar haddii saddexda shuruudood mid kamid ay ku dhacdo waxa leenahay function ka ahaysano ma ahan continuous ma ahan f of x is not continuous f of x continuous kuma ahan is not continuous at x equal 3 x equal 3 continuous kuma ahan shuruudihii ay mid kamid ku dhacday halkaas marka waxaan ugu baxnay waa example ka 5.12 ee noo sharxay continuity function ka qaybtaas marka waxaan ugu baxnay continuity of a function at a point ameesh ugu baxnay waxaan u gudbeynaa marka continuity of a function on an interval ayaan u gudbeynaa